Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtayda qaaliga waa idin salaam sidee tihiin? Alxamdulilah aniga waa fiicanahay. dad badan waxay soo qoreen fiima kumee xagee aaday, maxaa kugu dhacay, ma xanuunsan tahay? Abaayaal ma xanuunsani, abooyaal ilaahay caafimaad buuxa uu isiiyay alxamdulilah. Taleefanka iga halaabay muddo 40 birin waxaan ku maqnaa taleefankayga inaan soo sameeyo. Alxamdulilah hadeertan waan soo sameeyay. Videogaana waxaan rajeynayaa maanta inaan idiin soo geliyo insha Allah. idinkan waxaan rajeynayaa sidaad ebilba ii soo dhaweyn jirteen iyo si ka wanaagsan aad ii soo dhaweysaan insha Allah. welcome back niga soo qoro. filinkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa atooraheena iyo triishadeeda oo xafiiska wada joogaan. atooraheena mar walba wuxuu jecel yahay iyada inuu u soo dhawaado sidee fahmad iyo waxaas iskugu yeestaan, laakiin iyada ma jecel mar walba iyada uu u soo dhawaado ama oo shumeena iyada way ka xanaaqdaa. mar walba waxay isdhahdaa ka aarso maadaama uu ku shumiyay dagaal ugu bedel. waxay sugaysaa intuu waardiyaha ka baxayo markay u yimaadaan waxay ku dhahaysaa waan ka aarsanaya sawaad ii shumisayne. asigana wuxuu ku dhahayaa maxaa muhiim ah miya inaan is shumino, kadibna waxay ku dhahaysaa inaan kula dagaalayaan u baahanaa maadaama aad shumisay. asigana wuxuu ku dhahayaa waxaa jeceshaa sameey aniga xitaa dagaalka xiisa ayuu igu hayaa. ayadan waxay ku dhahaysaa waaya, kadibna waxay ku dhahaysaa soo socohe. kadibna wuxuu ku dhahayaa hadeerta mila dagaalaysaa ha ayay ku dhahaysaa. kadibna dagaalka ayaa bilaabanaya, labadoodna way isburbursanayaan. dagaalka la sheegaya waa isburbursi oo keliya. kadib mar kale ayuu gaadayaa woona shuminayaa. ayadii dagaalay u socotay laakiin shumis ayaa loogu bedelay mar kale. asigana wuxuu ku dhahayaa xoog soo yeela xoog malihidaniya horta. ayadan maskiinta waxay sheegtay ay weynaysaa. kadibna wuxuu ku dhahayaa guriga ayaan aadeynaa. labadoodna way soo wada raacayaan. ayadan gadaashiisa ayay soconaysaa waxayna ku dhahaysaa wax walba aniga darteeda ayay ku dhaceen iyo tabar la-aanteeda, xilligan waa iska kaa celin lahay. asigana wuu soo jeesanaya wuxuuna ku dhahayaa shamis kale miyaad u baahan tahayne. ayadan shab ayay dhahaysaa hoos ayay fiirinaysaa waxay ku hadasha ayayna weynaysaa. ugu dambeyn asiga gaariga ayuu u furayaa wuxuuna ku dhahayaa soo gal. kadib gaarigaya labadood soo wada korayaan. kadib wuxuu arkayaa inay hurdeyso, laakiin ayada waxay iska dhigaysaa inay hurdeyso maahina ma hurdeeni. kadib markuu isdhaw shumini indhaha ayay xoog iskugu qabanaysaa. kadibna wuxuu ku dhahayaa waayaha iska jiifa daartad laakiin maanta gaarigan le ku dhex hurdeynaa. kadib waaw ayaa ku barinaya iyagoo gaariga ku dhex hurdayaan. ayadan way soo kacaysaa waxayna ku dhahaysaa sidee maxaa guriga noo geen weysan, adiga ayaa hurda ayuu ku dhahayaa enerjiga aniga aan rabayna adiga waan kaa waayay camal. kadibna way xanaaqaysaa shab ayaana iska dhahaysaa. kadibna way soo baxayaan waxayna wada imaanayaan xafiiska. xafiiskan projecto cusub ayaa lasoo bandhigayaa. projectigan ayada ayaa lagu wareejinayaa. ninka meesha fadhiyana oo xaasid ahna ayadayoo ku qaylina wuxuuna ku dhahayaa gabadha mar walba waxayay halaysaa, adigan waxaa jeceshaa projectiyada inaad ku wareejisid. asigan wuxuu ku dhahayaa waxay ahaataba hadeertan ayada ayaa sameynayso. ayadan waxay arkaysaa projectiga inuu ka halaabay. kadib atooraheena ayaa xafiiska uga tagaa wuxuuna u hagaajinayaa projectiga. kadib shaqaalooyin kamid ayaa soo galaya, asigana wuu soo baxayaa. ayadan run ahaantii midaas aad iyo aad ayaa ugu xumaanaysaa maadaama asiga uu kasoo tagay. kadib taleefon ayay u diraysaa meel ayuuna ku balminayaa. ayadan waxay ku fikiraysaa meesha sidii waadi laheede. ugu dambeyn meesha ayay imaanaysaa waxayna u mahad celinaysaa projectiga oo u toosiyay. asigan wuxuu ku dhahayaa midaas waa shaqadaada, aniga shaqadeeda ma waxaan loo baahanyaa shaqadaada inaad ilaalsato, waxaadna ahaataa qof shaqadiisa mar walba ka fikirayo. wuxuuna u keenayaa projectiga wuxuuna ku dhahayaa hadeertaan waa nadiif, laakiin ha isku dayin dib dambe inaad u haleysid sababtoo dadkoo dhan adiga ayay kaa dacwoodaan. anigan maroo naag mar walba laga dacwoonaya waxaan rabaa qof aad iyo aad u sharaf badan. ayadan waxay ku hadashaa ayay weynaysaa aamusnaan oo keliya ayaa kasoo hareyso. kadibna wuxuu ku dhahayaa macsalaamo. ayadan waxay ka fikiraysaa waxay sameyn laheeday. habeenkii oo dhanna waxay ka fikiraysaa projectiga siday u toosin leeday. ugu dambeyn markay guriga imaado waxay isku dayaysaa asiga inay u dhawaato maadaama maanta xafiiska aad iyo aad ugu soo xanaaqay. asigan wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan seexdo. kadib laba barkin ayuu qaadayaa siday iskugu soo dhawaanina labadood dhexdood ayuu dhigayaa wuuna seexanayaa. ayadan mar walba waxay ku fikiraysaa siday iskugu soo dhawaan lahaayeen maadaama mar walba ay isdagaalaan aysanna isfahmin. waxay ahaataba ayadoosan rabin in la dareemayo waxay isku dayaysaa asiga gacantiisa inay qabsato. kadibna si tartiib ayay u sikinaysaa gacantiisa, asigana hurdada ayuu kasoo kacayaa. ugu dambeyn waxay isku dayaysaa gacanta inay ka qabsato wayna ka qabsanaysaa, laakiin maskiinta ayadoo isku day fiican samaysa ayaa taleefon
taleefankiisa lasoo diraya waxaan lagu balminayaa maqaayad. asigana wuxuu ku qasbanaanayaa inuu aado meeshaas, wuxuuna u sheegayaa inuu soo laaban doono ayadana iska sii seexato. ayadana waxay ku dhahaysaa keligaa iga tegin aan ku raaco. asigana mayayuu ku dhahaya wuuna iska baxaya. ayadana way xanaaqaysaa, waxayna ku dhahaysaa doqon waxay samaysaa ayay garan weynaysaa. asigana meesha lagu balmiyay oo ugu dambeyn imaanaya. kadibna gudaha ayuu u galayaa, wuxuuna la kulmayaa asxaabta balansate. kadib isla fadhiisanayaan, wayna isla cabeynayaan, iyagoo dhanna way wada sheekeysanayaan. maskiinta kalena guriga ugu soo tagay warna uma hayo. asigana halkan ayuu waqti ku qaadanaya oo asxaabtiisa ayuu iskala sheekeysanaya. kadib sikadiis ayuu codkeedu maqlayaa. markuu dhinac kala fiiriyana wuxuu arkayaa iyadoo saaxiibteed la fadhiso. cabaar kadib wuu weynayaa dabaqa sare ayuuna korayaa. kadibna wuxuu ku arkayaa iyadoo hoos joogto oo iska ciyaarayso. kadibna wuu la yaabayaa, saaxiibkiisna wuxuu la kulmayaa iyada, wayna isla sheekeysanaya. iyadana waxay ku dhahaysaa barasho wanaagsan. taasoo dhan intay dhaxayeen asiga wuxuu kasoo taabanayay dabaqa sare, sida u dhaqmaysana wuu la yaabay run ahaantii. kadib wuxuu usoo laabanayaa asxaabtiisa, wuuna lasii sheekeysanayaa. ugu dambeyn saaxiibkiisa ayaa imaanaya, wuxuuna la yaabayaa waxay kusoo wada hadleen. kadibna meesha ayay sheekadooda kasii wadanayaan. dhanka kale waxaan aragnaa tiriishadeenoo saayid u cabtay oona si saayida u ciyaarayso. asiga run ahaantii wuu la yaabayaa dhaqankan ay ku dhaqmayso. kadibna wuu istaagayaa maadaama wiilile u soo dhawaadeen sidoo asiga uga celiyo. kadib wuxuu u imaanayaa iyadoo sii dhici rabto, wuuna qabanayaa. kadibna maadaama cabsan tahay iyada koraya u qaadayaa. saaxiibkiisna wuxuu ku dhahayaa wax walba aniga ayaa xalinayo. kadibna wuxuu soo saarayaa gaariga asigoo aad iyo aad u xanaaqsan. kadib wuxuu sugayaa intay kasoo kaxaysa, markay soo kaxdan wuu ku qaylinayaa. ayadan way ku xanaaqaysaa, waxayna ku dhahaysaa keligii ayaa iga soo tagtay, gurigaas oo dhan caajis waa, adigan xafladayaad iska soo aaday. odayga gaariga wadayna wuxuu ku dhahayaa way saxan tahay, gabadha adiga ayaa qalad ka gashay. asigana wuxuu isku dayayaa inuu raalgeliyo. ayadan waxay ku dhahaysaa gacantaada iga deji. kadibna meesha ayay ku dhacaysaa. asigana qaladkiisa ayuu fahmayaa. ugu dambeyn wuxuu keenayaa guriga, wuuna seexinayaa. kadib wuxuu ku dhahayaa haddaan guriga imaano haddaa mis seexinaysaane. ayadoo soo kici rabtana gacanta ayuu ka qabanayaa. wuxuuna ku dhahayaa ayaantan waad kibirtay, waxaad rabtid inaad samaysid ayaad u baratay. ayadan afka ayay ka qabanaysaa, waxayna ku dhahaysaa afkaaga ammaan maba yaqaana miya oo caayin ahayn, qalbigaaga wax wanaagsan maba kusoo dhaxaay miyaane, adiga miska qaylinaysaa oo keliya waxyaabo kale ku fikir ayay ku dhahaysaa. haddii kale sida dharkii oo kale ayaan kuu dhaqayaa aniga, ma fahantayna wariyaa. asigana wuxuu ku dhahayaa waayahay ii dhaqee. marka u soo dhawaadan waxay ku dhahaysaa kac, waxaan kuu dhaqaa male iga hor istaag, jaaniskaaga ayaa rabtaa adiga inaad ka faa'iidaysad, anigana hurdo ayaa ii haysa midaas diyaar u miihi. kadib wuxuu ku dhahayaa kac. ayadan waxay ku dhahaysaa maxaan sameeyaa haddaan kaco, orad iska baxaya ku dhahaysaa doqonyo, adiga waxba ma samaynaysid waan ogahay. asigana madax ayuu qabsanaya, wuuna la yaabayaa hadallada ay ku hadlayso. subaxii markuu waa u beriyay waxay soo kacaysaa asigoo dhinaceeda jiifo, wayna isku naxaysaa. markay soo istaagtan waxay ku dhahaysaa maxaa samaysa wariyaa, maxay tahayna sidaan adigaad igu samaysay, aniga oraali keenayaad xalay la seexatay, midaasna mid wanaagsan maahan, xitaa waxaa loo baahan inaad soo kicisido waxay weydiisid, laakiin adiga doqon ayaa tahay. asigana wuxuu sheegay inuu waayo meesha dhan iskaaga soo tagayaa. ayadan musqushay ku dhex fikiraysaa, waxayna ku dhahaysaa hadeertaa maxaan sameeyaane. kadib wuxuu u keenayaa hadiyad. hadiyadaas markay aragtana fikir ayayba galaysaaba, waxay niyeysanaysaa ayadoo furta hadiyada oona uga soo baxday sootaano. sootaanada markay xiritayna asiga oo ka helay, ayadan aad iyo aad usii qurux badnaatay. kadibna aad ayay u qoslaysaa. kadibna waxay furaysaa hadiyada, waxayna arkaysaaba waxyaabo caadi aan ahayn, maaskara xayawaan iyo waxyaabo la xirto. ayadan aad ayay u xanaaqaysaa, waxayna dhahaysaa doqonka taacun. kadib way soo xiranaysaa, wuxuuna ku buufinayaa sun, wuxuuna ku dhahayaa xayawaankan oo kale taa wax artid ayaad ku fikiraysaa. ayadan waxay ku dhahaysaa maxay taa waxaa samaynaysid. kadib wuxuu ugu sheekeynaya habeenkii sida iyadoo ugu soo dhawaanaysay oo asiga ugu soo dhawaanay. kadibna waxay fahmaysaa qaladkeeda, wuxuuna ku dhahayaa wax kale ma jeceshahay inaan kaaga sheekeeyo. ayadan waxay ku dhahaysaa mahadsanid, wax kale uma baahni. asigana wuxuu ku dhahayaa sidii oo kale hadirtaan iigu soo dhawaawno. ayadan waxay ku dhahaysaa maya. ugu dambeyn habeenkii xigtay labada sariir dhexdooda ayay waxay dhigayaan alwaax sidaysan labadooda iskugu soo dhawaanin. ayadan midaas aad iyo aad ayay u xanaaqaysaa. kadibna labada gacan ayuu isku xirayaa, wuxuuna ku dhahayaa adigana ma kici kartid amar la-aanteeda, anigana ma kacaayay. kadib way isku soo dhawaanayaan, qof walbana qofka kale ayuu wuxuu ka furayaa gacanta. habeenka
halkaasna labadood way isku soo dhawaanayaan. Maalinta xigta waxay arkaysaa wiil caan ah aad iyo aad ayay noogu helaysaa waxayna ka qaadanaysaa sawir nambarkiisna way ka qaadanaysaa asagana aad iyo aad ayuu u masiiraya wiilkaasi ayada iyo asxaabteedan wada shaqeyn badan ayaa ka dhaxeynayso aad ayayna ugu farxayaan midaas asagana aad iyo aad ayuu u xanaaqaya habeenkii oo dhan ayadoo sariirta ku sugaya wuxuuna ku dhahayaa qof cusub hadee aragta bas miyaane aniga dhan jaanis ima haysa miyaane kadib sariirteeda ayuu dhexgalaya wuuna seexanaya ugu dambeyn maalinta xigta wuxuu ku dhahayaa qof kale lama hadli kartid wada shaqeyn dambana ma jirto anigan go'aan waxaan ku soo gaaray inaad hoostayda maahin meel kale aad ka shaqeynin mar walba asigoo shaqeynayna gacanta ayuu ku haysanaya kursiga dhinaciisa ayaana seexanaysaa asagana isku soo dhawaashaas run ahaantii aad iyo aad ayuu u farxaya filimkeena qurux badnaayna halkan ayuu ku dhamaaday muuqaalkan hadaa ka heshan like noo saar subscribe noo taabo gambaleelkana furo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mac salaam